assalaamu calaykum. qof kasta oo u soo dhowaada meesha ay shinnidu ku samayso malabka waa qasab inay shinnidu qaniinto iyadoo isku dayaysa inay qofkan ka fogayso meesha. haddii uu qofkaasi ka tegi waayo meesha, markaasi shinnidu waxay adeegsan doontaa go'aankeeda u dambeeya, waana inay qaniinto qofkaas. waana isdifaacid ay difaacayso gurigeeda. laakiin qariib iyo layaab ma aha inay ku qaniinto, waxaase la yaaba waa inay dhimato marka ay ku qaniinto kadib. waxaanay sidaas u samaysay una dhimanaysaa inay ilaaliso carruurteeda iyo gurigeeda. waxaana qasaba inaan isweydiino sababta ay u dhimanayso shinnidu marka ay dadka qaniinto. inkasta oo ay jiraan xayawaano badan iyo noolayaal kale kuwaas oo qaniina dadka, haddana aan dhiman. muuqaalkeenna maanta waxaan kaga jawaabi doonaa su-aashan ah: maxay u dhimataa shinnidu marka ay dadka qaniinto kadib? haddii ay tahay markii kuugu horreysay ee aad soo booqato kanaalka, fadlan ku soo biir oo ka mid noqo asxaabta ku xiran kanaalkeen. jirka shinnida waxaa jira meel lagu magacaabo qaniine stinger, waana meesha ay wax ku qaniinto. laakiin shaqada ugu muhiimsan ee ay qabato waa inay fududayso marka ay ukunta dhigayso ama ay dhalayso. waxaana ku yaalaa meesha ay ka soo baxdo ukuntu. waxaana jira shaqooyin kale oo ay ku qabato, waana inay kaga hortagto weerarada ay ku soo qaadaan xayawaanada kale. haddii aan si fiican u fiirsanno muuqaalka shinnida oo si faahfaahsan loo sawiray, waxaan arkaynaa in stingerka ama qaniinaha uu ka soo bilaabo madaxa shinnida, isagoo halka u dambeysa ku leh af miishaarta u eg oo kale. taa ayaana u sahlaysa shinnida inay qaniini karto xayawaan kasta. shinnidu waxay jeceshahay inay keli ahaato, iyadoo ku dadaasha inay ka fogaato wax kasta oo dhibaato ku keenaya hawsha ay ku jirto ee malab samaynta ah. mana dagaalanto ilaa la soo doonto oo loo soo dhowaado gurigeeda mooye. waxaana la ogaaday inaanay shinnidu waxba qaninin iyadoo ka fog gurigeeda. haddii aad tusaale aragto shinni ku taagan meel ubax ah ama ubax dul saaran meeshaasi oo kuu dhow, waxaa adag inay shinnida ku qaninto ilaa adiga oo dhib u geysta mooye, maxaa yeelay markaas waxay difaacaysaa nafteeda. maxay u dhimataa haddaba? waxyaabaha la yaab kale ee ku saabsan shinnida waxaa ka mid a inay shinnidu dhimato marka ay qaniinto qofka ama dadka. haddaba ma isweydiisay sababta? jawaabtu waa in qaniinaha ama stingerka ay wax ku qaniinto shinnidu aanu u diyaarsanayn inuu qaniino qof bini aadama, ama si kale inaan loogu talagelin xayawaanada uu jirkoodu adag yahay. waxaana uu u diyaarsan yahay inuu qaniini karo cayayaanka yaryar ee soo weerara shinnida. sidan hore u soo sheegnay, stingerka ama qaniinaha shinnidu waxa uu u samaysan yahay sida miishaarta oo kale, kaas oo ay fududahay marka uu meesha galayo, laakiin ay adag tahay marka ay dib uga soo saarayso ama dib looga soo saarayo. waa uuna ku dhagayaa qaniinahaasi meeshii uu markii hore qaninay ama uu galay. waana sida caagga yar ee derbiga la geliyo, kaas oo lagu dhajiyo musbaarka. waxaana adkaanaysa inuu dib uga soo baxo derbiga, waana mid loo sameeyey inaanu ka soo bixin. waxaa laga yaabaa inaad weli isweydiinayso, laakiin maxay u dhimataa shinnidu? waan kuu soo wadaa. waana in qaniinaha ama stingerku uu ku dhagan yahay qayb muhiima oo ka mid a shinnida, sida dheefshiidka iyo madaxa. waxaana dhacda in marka ay shinnidu qaniinto qofka kadibna istiraado kala soo baxa stingerka ama qaniinaha, ay awoodi kari weyso arrinka. jiiditaanka badan ee ay shinnidu jiido waxa uu keenayaa ama u keenay inuu ku haro jirka qofka, laakiin aanu ku harin keligii ee ay soo raacaan qaybo ka mida caloosha iyo dheefshiidka shinnida. taas ayaana ku keenaysa shinnida inay weyso qaybo muhiima oo ka mida jirkeeda, sidaasna ay ku dhimato. boqoradu waxay awoodaa inay qaniinto qofka kadibna ay dib ula soo baxdo stingerka ama qaniinaha iyadoon wax dhiba marin. sababtuna waa in stingerkeeda ama qaniinaheedu ka duwan yahay kan shinnida caadiga ah. sidoo kale waxaa sababaya in boqorada uu ka caawiyo inay dhigto maalintii ilaa 2,000 oo ukun ama beed. sidaas ayuuna uga duwan yahay isagoon lahayn qaabka miishaarta oo kale. waana sababta ay u qaniini karto dadka kadibna nolosheeda caadi ay usii wadan karto. cayayaanka iyo shinnida. haddii koox cayayaan ah ay soo weeraraan meesha ay shinnidu malabka ku samayso, shinnidu waxay iska celisaa cayayaanka iyadoo qaniinaysa, waxbana ma noqoto. maadaama jirka cayayaanku yahay mid jilicsan, waxaanay awoodi kartaa inay dhowr jeer qaniinto halkii cayayaan. marka ay shinnidu qaniinto qofka, markiiba waa ay ka duushaa, waanay ka carartaa.
waxaa jirkiisa ku hara istiingarka shinnida ama qaniinaha, waanu sii jirayaa inta aanu qofku iska saarin, waxaanu jirka ku sii daayaa dheecaano kuwaas oo qofka ku sababaya xanuun badan. haddaba haddii ay ku qaniinto shinnidu, waxaa kugu waajiba inaad hore isaga saarto. mar kasta oo jirkaaga ay ku sii jirto, waxay kugu sii daynaysaa maadada lagu magacaabo melatonin, waana maadada ku sababta jirka inuu casaado ama guduud noqdo, meeshuna ay ku xanuunto. shinnida oo dhan miyay wax qaniintaa? daawade, waxaad ogaataa inaan dhammaan shinnidu aanay waxba qaninin, gaar ahaan shinnida lab waxba ma qaniinto. waxaana odhan karnaa ragga ama kuwa lab ee shinnidu waa nabadoono, halka kuwa wax qaniine ay yihiin kuwa dhadig oo keliya. waxaa kale oo la sheegaa in qaar ka mida dhadiga shinnidu aanay waxba qaniinin, laakiin shinnida ku nool geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya, dhammaan dhadigu waa ay qaniinaan dadka iyo xayawaanada soo doonta. waxaa kale oo jira nooc shinnida ka mida oo loo yaqaano Adiridae, kuwaas oo dhadig iyo labtoona aanay waxba qaniinin. waxaa kale oo jira shinni ku nool wadamada dhulbaraha qaaradda Afrika, qaybo ka mida qaaradda Aasiya iyo waddanka Brazil, taasoo iyaduna aan qaniinin dadka iyo xayawaanka oo dhan, waxaana lagu magacaabaa shinnida aan wax qaniinin. si guud, shinnida hore kuu qaniintay ama ku qaniini doonta mustaqbalka, waxaad ogaataa inay tahay tudhadig. digniin: jilaca ama jiraca ama dhuxunkureebka waa nooc ka mid a cayayaanka wax qaniina, waxaanu ka duwan yahay shinnida. haddaba daawade, waxaan kaaga digayaa inaad u dhowaato ama doonato jiraca, waayo waa mid ka cadaawad badan shinnida, sidoo kalena waxa uu ka duwan yahay istiingarka ama qaniinaha shinnida oo isagu uma samaysna sida miishaarta ee uu samaysan yahay ka shinnidu. waxaanu awoodi karaa inuu 10 jeer ku qaniino, welina aanu waxba noqon ama aanay wax dhibaataa soo gaarin. dhanka kale, sunta jiraca waa mid ka duwan midda shinnida, waxaana ku jirta maadada loo yaqaano acetylcholine, waana maado ka mida maadooyinka xanuunka keena. waxaan rabaa inaan intaa uga faa'iidaysto. jiraca ama dhuxunkureebka ayaa waxa uu yahay noole caan ka ah dunida, waxayna khubarada caafimaadku sheegeen in jirkiisa ay ku jirto sun aashita ah. waxa uu ka mid yahay bahda quraanjooyinka ee ka kooban 4 qaybood oo kala ah: quraanjada guriga ee uduga leh, quraanjada sokorta oo ay Soomaalidu u taqaano macaan jecel, jiraca iyo quraanjada qumbaha. bahda quraanjada ee uu ka mid yahay jiraca aan ka hadlayno ayaa ka mid ah xayawaanada ugu adkaysiga badan ee la qabsada cimilo walba, sida lagu qoray bogga ka faallooda arrimaha xayawaanada ee loo yaqaano Animal Diversity. jiraca marka la taabto waxaa ka soo baxa qurmuun, kaas oo ka imanaya sunta aashitada ee jirkiisa ku jirta oo uu hub ahaan u adeegsado. dhulka uu qabowga xad-dhaafka iyo kuleylka daran ka dhaco ee waqooyiga Ameerika ayay quraanshadu ama quraanjadu si caadiya ugu nooshahay, waxayna ka mid tahay noolayaasha maguuraanka ah. waqtiga qaboobaha ayay dhalaan ukumaha ugu badan sida lagu sheegay xogtaasi. horey waxay saynisyahanadu u ogaadeen in maadooyin maandooriye ah laga heli karo jiraca, kuwaasoo lagu fahmay daraasado lagu sameeyey. waxaa sidoo kale jiray in la arkay shimbiro u muuqda inay sakhraansan yihiin kadib markii ay wax badan ka cuneen quraajooyin uu ka mid yahay jiraca. sida aad maqasheen ama qaarkiin ay maqleenna maalin dhoweed, waxaa jirtay inay soo baxday arrin ugub ah, taasoo ahayd in jiraca ay u isticmaaleen dad Soomaalida ka mida qaarkood inuu yahay sida maandooriye oo kale. oo waxay sameynayeen baa la yidhi, intay soo qabtaan jiraca ay qaybta dambe ka goynayeen, kadibna dab saarayeen, qiiqa ka soo baxaya ayay markaasi ku saqraamayaan, oo waxaaba la oranayay way jiracaysan yihiin. waa la yaab iyo arrin aan fariir leh. dadka maandooriyaasha isticmaala meel walba way u galeen inay helaan wax ay ku saqraamaan, ku marqaamaan, sidoo kalena ay hawada ku galaan. maxaa kugu sababaya caqligaagii iyo garashadii Ilaahay ku siiyey inaad la dagaalanto, aadna wax ka raadiso jirac qurmoonkii qashinka ahaa, inaad ku saqraantid inta miskiinka dabada ka goysid oo dabka saartid? ugu dambeyn, sababtaan u sheegayna arrinkaasi waa in xog ahaan loo ogaado oo keliya, ee maahan inaan dhiirigelinayno in bahallada dabada laga jaro, dabka la saarto, la isku qiiqiyo, sanka loo dhigto, kadibna lagu marqaamo ama lagu saqraamo. waxaan intaa kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeennii maanta. haddii aad ka mid tahay asxaabta ku cusub kanaalka Ogaalka Dunida, rukumo oo subscribe dheh, gambaleelkana furo si ay kuu soo garaan dhammaan muuqaalada aan halkan soo gelino. haddii aad ka heshay muuqaalka, ha ka baqiilin inaad la garayso si ay usii arkaan asxaab kale ugana faa'iidaan wixii aad ka faa'iiday. sheergaree oo la wadaag kanaalka asxaabtaada si aan u gaarno ama u helno tirada ugu badan oo asxaab ah oo aan kala faa'iidaysano.
wixii faallo ah inoogu reeb qaybta hoose ee commentiska ama faallooyinka. waa inoo muuqaal kaloo xiiso leh. fii amaanillah. guulaysta. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.